Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada mar kale iyo FBL Somali. Waa anigoo ah Daahir Cabdilla Cali. Xalaqo kale oo Euro Fantasy 2020 ku soo dhawaada. Waxaa lagu sii dhow yahay in loo gudbo wareegga labaad ama match day 2 ee kulan ciyaareedka labaad ee loo sii gudbayaa. Waxaa jiro kulamo xiiso badan oo la soo ciyaaray oo muhiim ahaa iyo maadaama loo gudbayo wareeg labaad waxaa jiro fantasy ahaan waxaa jiro waxyaabo badan oo aad samayn kartid. Su'aasha ugu muhiimsanayd ee taageerayaasha FPL Somali ay soo weydiinayeen oo Euro Fantasy ku saabsan waxay ahayd substitutionka ama bedelka la samaynayo. Su'aal ka mid ah su'aalahaasi waxay ahayd ma samayn karaa bedel kadibna dhibcihiisa ma heli karaa. Taas waxaan uga jawaabayaa haddii aad bedeshid ciyaartoy oo ciyaaray tusaale ahaan Insigne oo ciyaaray ciyaartii Turkiga iyo Italy oo gool dhaliyay dhibcihii uu keenay haddii aad bedesho ciyaaryahan aan ciyaarin tusaale ahaan Mbappe aan dhihna Pogba oo kale aad ku bedeshid maadaama khad dhexe uu yahay aad ku bedeshid dhibcaha Insigne ma la xisaabaya oo kale ahayd. Marka laguma xisaabayo mar haddii aad bedelato waxaad ku xisaabtamaysaa oo kaliya ninkan hadda aad ku soo bedeshay waxaad ka hesho baad ku xisaabtamaysaa. Marka su'aalahaas oo kale waa in soo weydiin kartaan qaybta groupka FPL Somali Fantasy Somali Fans ayaan ugu soo weydiin kartaan. Sidoo kale YouTube-ka FPL Somali waan ugu soo weydiin kartaan. Waxaad sidoo kale nagala socon kartaan Instagram-ka FPL Somali oo aad nooga soo biiri kartaan. Toddobaadkii hadda aan ku jirno ee naga sii dhamaanaya oo kulamo xiiso leh ay dhiman yihiin sida kulanka u dhaxeeya xulalka Germany iyo France. waxaa la soo ciyaaray kulamo sidoo kale xiiso badan. Kulanka ugu horeeyay ee horyaalka xil ciyaareedka ama aan iraahdo tartanka lagu furay wuxuu ahaa kulankii u dhaxeeyay Turkiga iyo Talyaaniga. Kulankaasi waxaa xiiso lahaa sida Talyaaniga ay u soo bandhigeen ciyaartooda iyo awoodda tabareerada ka muuqatay Turkiga oo aad moodo in aynan u soo diyaargarow badan uusan ka muuqanin iyo awoodda tababare Mancini kooxdiisa u soo dhisay oo aad u sareysay. ciyaartaasi waxyaabaha la xusi karo dhacay waxaa ka mid ahaa ciyaaryahan Immobile oo gool-dhalintiisa aad u wanaagsan tahay oo xil ciyaareedkii la soo dhaafayna kooxdiisa Lazio gool badan u soo dhaliyay inuu soo muujiyo. Insigne oo maamulayaal badan ku tashanayeen inuu 8 dhibcood u keeno. ciyaarta kale ee dhacdayna waxay ahayd ciyaartii oo sidoo kale dhibcaha laga kala helay waxay ahayd ciyaartii Belgium-ka ay soo bandhigeen oo kale. Belgium-ka 3-0 ay ku badiyeen. Waxay ka mid yihiin xulalka goolasha 3 oo nadiifka ah ku badiyay. Waa kaliya Talyaaniga iyaga ayaa ka badiyay gool nadiif oo 3 ah. Maamulayaal badan ayaa waxay ku xisaabtamayeen ciyaaryahanada ciyaarayo oo sida Lukaku oo kale oo 2 gool dhaliyay oo ilaa iyo maamulayaal aad u tiro badan kabtan ay saarteen oo dhibcihiisana uu ku abaalmariyay ilaa 20 dhibcood. ciyaaryahanadii aan hore ugu soo sheekeynay inay ciyaari doonaan aan la filayay sida De Bruyne oo dhaawiciisa hadda soo kabasho muujinaya iyo Eden Hazard oo daqiiqado helay. Iyagana waa Eden Hazard oo daqiiqado helay ayaa la xusi karaa. dhinaca kale xulka Holland oo aan ognahay qaab ciyaareed yani kubadiisa guud falsafadiisa marka la dhaho aad u wanaagsaneed oo lagu naanaysi jiray Brazilta Yurub. waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan inkastoo ciyaarta markay sii dhamaan rabto oo qaybihii dambe la gaaray 15 daqiiqo ee ugu dambeeyay 2 gool laga keenay oo xulka Ukraine oo hogaaminaya Andriy Shevchenko uu hogaaminayo 2 gool oo degdeg ka keenay laakiin guushii ay ugu dambeyn Netherlands ay gaareen oo ciyaaryahan daafac uga ciyaara oo lagu magacaabo Dumfries oo goolka guusha u dhaliyay daqiiqadii 85aad. ciyaarahaas ayaa ugu xiiso badnaa. xulka England oo kale 1-0 ay ku badiyeen. Sterling oo aad loo hadalhayay oo lahaa qaab ciyaareedkiisa aad u wanaagsana ayaa goolka guusha u dhaliyay oo dadkii aad u hadalhayay ee lahaa Mohamed keeni karona u jawaabay. arrin ayaa dhacday oo toddobaadkii la soo dhaafay ninka lagu magacaabo Christian Eriksen oo maamulayaal badan ay ku xisaabtamayeen inuu wax ka keeno kulankii Denmark iyo Finland. Istaag ayuu ka dhacay oo wadnaha ayaa wax ka istaagay. marka ninkaasna isla habeenkii waxaa la soo sheegay inuu wanaagsan yahay haddana xaaladiisii
oo sida hore ay ka fiican tahay oo xitaa qoraal uu dad taageerayaasha ugu mahadcelinayo oo soo dhigay. taasna waxay ka mid ahayn toddobaadkan waxyaabaha niyadjabka lahaa ee laga arkay. dhaawacyada oo kale ciyaaryahan Castagne oo ciyaara xulka Belgium-ka oo kale dhaawac halis ah soo gaaray oo madaxa ka soo gaaray. marka waxay u muuqataa in tartanka uu si kulul ku bilowday oo xaalado adagna la marayo. balse tartankan wuxuu kii hore uga duwan yahay in laga ciyaaray ilaa magaalooyin dhowr ah sida hadda Amsterdam iyo St Petersburg oo kulankii Ruushka ka dhacay, Glasgow oo kulankii Czech Republic iyo Scotland oo 2-0 oo ciyaaryahanka lagu magacaabo Chick uu dhaliyay goolka hadda la dhihi karo goolka ugu fiican ee tartanka ilaa hadda. toddobaadkan Yarmolenko oo kale goolka uu ka dhaliyay Holland waxaa lagu tirin karaa goolasha mid ka mid ah goolasha ugu fiican. marka horyaalka tartanka wuxuu ku bilowday si xawli ah, kulamo muhiim ah oo la filayo in wax laga keeni karo sida hadda kulanka Spain iyo Sweden ever ayaa lagu kala baxay. ciyaaryahanka maamulayaasha inta badan ay budgetka ahaan ay u iibsadeen Gerard Moreno gadaal ayaa laga keenay kulankaasi oo hal waxaa laga badbaadiyey oo darbo oo madaxa ah ayaa laga badbaadiyey. ninkaas wuxuu ka mid noqon doonaa mid ay maamulayaasha ay ku tashan doonaan. hadda waxaan u gudbaynaa wareegga labaad, inkastoo kulamo ay harsan yihiin oo la filayo inay kulanka ugu xiisaha badan wareeggan oo u dhexeeya Germany iyo France la filayo inuu dhaco maalintan aan hadda muuqaalka aan samaynayna. laakiin isla maalinta ku xigta oo maalinta Arbacada ah waxaa xigi doona kulamadii kale ee wareegga labaad sida kulanka Turkiga iyo Wales, Italy iyo Switzerland, Finland iyo Russia, Denmark iyo Belgium-ka, Ukraine iyo North Macedonia, Netherlands iyo Australia, Croatia iyo Czech Republic, England iyo Scotland, Sweden iyo Slovakia, Spain iyo Poland, Hungary iyo France, Portugal iyo Germany. marka waxyaabaha xusida mudan ee maamulayaasha aad u hadlayaan oo humaaga ugu jira waxaa ka mid ah jibka ama jibaarada la isticmaalayo ee fantasigan limitless midka lagu magacaabo jibaarka aan xadidnayn oo aad samayn kartid budgetka oo ka badan 100 ah haysid, iyo wildcard-ka oo ah in aad isticmaashid dhibcahaagii oo budgetkaaga caadiga ahaa oo 100 iyo ciyaartooyda aad ku iibsan kartid. marka limitlesska hadda ha ku degdegin oo aad iyo aad uga fikir wareegga labaad iyo wareegga saddexaad limitlesska waa samayn kartaa oo waxaa samayn kartaa wala wareegis aan xadidnayn. muuqaal ayaa jiro aan uga hadalnay sharciyada oo dhan oo aad daawan kartid. marka wildcard-ka oo kale asna hal mar unbaa fursad leedahay, marka asna si fiican uga fikir. waxaa jiri doona muuqaalo gaar ah oo aan ka samayn doono hadduu Ilaahay ma yareen insha Allah. limitlesska haddii aan mar kale ku laabto inta ka horeysa wareeg markii uu dhamaado wareegga gurubyada wareegga 16 waxaa jiri doona asna hal limitless ah. marka taas u diyaar garooba. aad ay u mahadsantihiin saaxiibayaal. waxaan idin leeyahay FBL Somali ku xirnaada oo ku soo biira bogga iyo YouTube-ka, Facebook iyo Instagram-kana si gaar ah ayaan ugu daabacnaa oo si joogto ah. fadlan ku soo biira halkaasna, saaxiibadiina la wadaaga oo groupkana ku share gareeya. aad ay u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.